golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa ay saaka ansixiyeen 6 xubnood oo kamid ah 7 xubnood ee komishinka doorashooyinka Soomaaliland kadib markii xisbiga wadani uu hore u shaaciyay inuu hakiyo xubintiisii komishinka doorashooyinka oo matali lahayd ugu horeyn xogayaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Siciid Ayaanle ayaa waxa uu mid u akhriyay siifiyada 6 xubnood soo gudbin xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka ee cusub mudana gudoomiye sida la socoto waxa dhamaad ku dhow mutaxiliidkii guddida doorashooyinka qaranka waxaana la gaaray waqtigii la idin soo gudbin lahaa guddidii bedeli lahayd guddida maanta xilka haysa sidaas daraadeed waxaan halkan ku soo gudbinaynaa 7 xubnood ee loo soo xulay inay noqdaan komishinka doorashooyinka qaranka ee cusub buuxiyeen shuruudihii xubnimada komishinka doorashooyinka qaranka ee ku qeexan qodobka 13aad ee xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka xeer number 2001 sida ku cad qodobka labaad ee xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha xeerka 20 waxa soo xulay xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka golayaasha guurtida 2 xubnood asxaabta mucaaradka ee diiwaan gashan 2 xubnood iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland 3 xubnood kuwaas oo soo kala ah xubnahan injineer Cabdirashiid Maxamuud Cali Allah ma hadle madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaan akhriyeynaa warqadii guddida ku shirkadooda golaha wakiilada guddiga arrimaha gudaha warqadoodii ujeedada ansixinta xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka guddiga goluhu markay aragtay digreetada madaxweynaha ee taariikhdeedu ahayd 10/2019 kuna taariikhaynayd 12 bishii 10aad inuu ahaado Cabdirashiid Maxamed Cali xubin ka tirsan komishinka doorashooyinka qaranka guddiga oo gudinaya waajibaadkooda ku tilmaamay qodobka 3 xubintiisa koowaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland guddigu markay aragtay qodobka 12 xarafkiisa D ee xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka guddigu markay aragtay qodobka 13 xubintiisa koowaad 2 3 4 shanaad 6 7 iyo 8 xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka waxa noo soo baxday inuu buuxiyay shuruudaha oo xeerka la dhigayo guddi ahaan waxaan ku qanacnay aqoontiisa waayo-aragnimada uu leeyahay xilka loo magacaabay sidaas daraadeed waxaan guud ahaan soo jeedinaynaa golaha weynaha inuu ku qanacsano lana ansixiyo mudane Cabdirashiid Maxamed Cali Allah ma hadle guddidu way saxday maxaa soo kooban baynu u gelaynaa Maxamuud Daahir Jaam CV yiragalo wuxuu ka soo baxay bachelor of engineering 1990 ila 1994 wuxuu kaloo diblooma ka haystaa engineering 81 84 wuxuu ka soo bartay waddanka Hindiya shaqooyinkiisa inuu galaynaa wuxuu soo noqday wasiir dawladii xanaanada xoolaha 2015 iyo 2018 wuxuu ahaa xogayaha qorsheynta xisbiga wadani 2013 2015 wuxuu ahaa task force ka mid ah National Election Commission ka Somaliland 2013 ilaa 2015 wuxuu ka ahaa vice chairman gudoomiye ku-xigeenka labaad ururkii loo jiray ummadda shaqooyinkiisu waa badan yahay wuxuu soo shaqeeyay meelaha Sacuudiga ka soo shaqeeyay halka waxa ku faaqan warqadiisii caafimaadka iyo tiisiisa bilaanta Maxamuud Daahir Jaam tii madaxtooyada waniga akhrintii guddidu baynu wareegaynaa asxinta xubinta doorashooyinka maxaan ku raadayay qaranka guddidu markay aragtay digreetadii madaxweynaha ee tixraaceedu ahaa jamhuuriyadda Soomaaliland gaawa 01/136 19 kuna taariikhaysan 12 bishii 10aad 2019 oo madaxweynaha jamhuuriyadda u soo gudbiyay golaha inuu ahaado mudane Maxamuud Daahir Jaamac xubin ka tirsan komishinka qaranka guddidu iyagoo gudinaya waajibaadkeeda uu tilmaamay qodobka 53 xubintiisa koowaad dastuurka Soomaaliland guddidu markay aragtay qodobka 12 xarafkiisa D ee xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka xeer number 2001 guddidu markay aragtay qodobka 13 xubintiisa koowaad 2 3 4 5 6 7 8 xeerka doorashooyinka iyo madaxtooyada golayaasha deegaanka xeer number 2001 guddiga waxa uu soo baxay inuu buuxiyay shuruudihii uu xeer ku dhigay guddi ahaanna waxa ku qanacsanahay aqoontiisa iyo waayo-aragnimadiisa uu leeyahay xilka
sidaa daraaddeed waxaa guddi ahaan soo jeedinaysaa goloweynuhu inuu ku qanacsan yahay in loo ansixiyo mudane maxamed daahir jaamac xilkaas oo loo soo magacaabay goloweynuhuna ka guta waajibaadkiisa dastuuriga waxaan soo koobaynaa CV-giisa waxbarashadiisa 84-89 wuxuu ka soo baxay iskuulka yaashin maxamuud al-qudbi oo ku yaalla baran 88-94 wuxuu ka baxay dugsiga sare ee la yidhaahdo xayaat islaamic aan shareeca loo baran 1986 ilaa 1984 wuxuu dugsigiisii baran buu ka soo baxay secondary-ga wuxuu ka qaatay iskuulka la yidhaahdo nawaawi boosaaso 1998 2 sano dibloma ka qaatay university la yidhaahdo boosaaso 202 dibloma ka qaatay college boosaaso ku yaalla bachelorkiisa business administration buu ku qaatay wuxuuna ka qaatay jaamacadda la yidhaahdo Eastern Africa University boosaaso shaqooyinkiisa waxaa ka mid ahaa inuu ahaa gudoomiye ku-xigeenkii hay-adda wadooyinka ee la yidhaahdo ARD shaqooyin badan buu soo qaatay luqooyinka ku hadla waa Soomaali English Carabi halkan waxaa ku lifaaqan warqadiisii dambilaanta iyo tiisii caafimaad مصطفى محمد طاهر مصطفى أسعدني بنورينا أسعدنا وأنا أخلي كنت مركز سوق ومن كنت واحد سوق شيء سي مركز كوكان عضي مصطفى يقول وينو أسميه يقول سافي كسان مصطفى سيفي كيسي مقلنا مصطفى وحبنا شدي سي عمود يونيفرسيتي يمكن ماستر بابا صعوبة أرنس يونيفرسيتي هرجيسنا باتشلر بقاقاتي 2010 كيلا 2013 International University of Africa Khartoum Sudan Bachelor of Science بقاقاتي 2010 Secondary School كيسبورة مقابحي 1997 إلى 201 دوكسي كيسدحوها 1993 إلى 96 88 92 شغوين كسوق التيات بالبدايين ونسوق بوبنا إلى إيو لباتن بهالكن وقرن 2017 wuxuu shaqeynayay hay'adda la yiraahdo Child Protection ayuu shaqeynayay consultant u ahaa 2017 kiina wuxuu ka shaqeynayay guddidu waxay soo jeedisay kuna qanacday in xilka loo magacaabay ay kaltuun buuxin karto golahan waxay soo jeedinayaan in la ansixiyo kaltuun si fiican soo koobaynaa kaltuun waxbarashadeeda jaamacadda heerka koowaad bachelor degree waxa ka qaadatay international relationship and global study 2013 kii Hargeysa International University bay ka qaadatay jaamacadda heerka labaad waxay ka mid ahayd guddiga doorashooyinka qaranka waxay xubin ka ahayd guddiga jaamacadda Hargeysa waxay xubin ka ahayd guddiga furashada ururada siyaasadeed waxay agaasimo guud ka soo noqotay ururka wadaniga waabo waxay gudoomiye ka soo noqotay ururka dalada nagaad waxay wax ka samaysay qorshihii plaankii N1 waxay ka soo shaqaysay Chamber of Commerce halka wax ku lifaaqan warqadii dambilaanta iyo caafimaadka عبد الرحمن محمد اسماعيل دحول guddidu waxay soo jeedisay inuu xilka qaban karo qolahana waxay ka codsanayaan in loo ansixiyo dixood wuxuu dhashay 58 waxbarashadiisa waxa weeyaan Bombay buu ka soo qaatay Geotechnical Engineering BS ayuu ka soo qaatay bachelor ka soo qaatay 1997 na wuxuu ka baxay Faarax Omar intermediate kiisina wuxuu ka baxay 1969 73 1975 69 wuxuu ka baxay alxamdulillah dugsigiisa hoose shaqooyinkiisu Somaliland Hospital Principal Advisor u ahaa 2005 ilaa 2009 2003 ilaa 2006 wuxuu ahaa wasiirkii macdanta ee dawladii Riyaale 1992 wuxuu ahaa private business ku ka ahaa halka waxa ku lifaaqan warqadiisii dambilaanta tiisii caafimaadka حسن يوسف تعالى حسن يوسف تعالى guddidu way ku qanacday markay aragtay CV-giisii shuruudihiisina uu buuxisay golahana waxay ka codsanayaan in la ansixiyo shaqooyinkiisu aad bay u wadaniyeen jaamacadihiisu operating systemka wuxuu ku soo bartay network waa soo bartay wuxuu soo bartay Windows 3.1 Windows 95.2.202 Windows wuxuu kaloo uu yahay applicationada Wordka
excelka powerpointka pageka shaqooyinku soo qabteen aad bay u badan yihiin halkan waxaa ku lifaaqan warqadii dambilaada iyo tiisa caafimaadka oy dhamaatay guddida doorashooyinka waa fasaxan intaas kadib golaha ayaa xubin ugu codeeyey 6 xubnood ee komishinka doorashooyinka Soomaaliland codayn baa la keenayaa dhaqdhaqaaqa hal la joojiyo 6 baa fadhiya xildhibaanada ogol in la asixiyo Cabdirashiid Maxamuud Cali gacanta taagan صف waliba koonida ha u tiriso Cabdirashiid Maxamuud Cali waxa ogolaaday 50 xildhibaan 13 xildhibaan waa diiday hal xildhibaan waa ka aamusay gudoomiyuhu muu codayn sidaas oo ansax ku yahay Maxamuud Daahir Jaamac xildhibaanada ogolay gacanta taagan gacanta ayaa la tijiri raabtirada ka baato Maxamuud Daahir Jaamac 50 xildhibaan ayaa ansixiyay 5 xildhibaan waa diideen 4 waa ka aamusay gudoomiyuhu muu codayn Maxamuud Daahir Jaamac saas ku ansax ku yahay Mustafa Maxamed Daahir 58 xildhibaan baa ansixiyay 4 xildhibaan waa diiday 2 waa ka aamusay gudoomiyuhu muu codayn sidaas oo ansax ku yahay Kaltuum Xasan Cabdi 50 xildhibaan baa ansixiyay 8 waa diideen hal xildhibaan waa aamusay gudoomiyuhu muu codayn sidaas ay ansax ku tahay Abdiraxmaan Maxamed Xood 58 baa ansixiyay ciidama diidin 6 waa aamusay gudoomiyuhu muu codayn sidaas oo ansax ku yahay حسن يوسف تعالى كنت لي 8 حلبان ما ogolaaday hal xildhibaan waa diiday shari waa ka aamusay si kastaba ha ahaatee golaha ayaa saaka u codeeyay isla markaana aan ansixin xubinta xisbiga wadani u matali lahayd komishinka doorashooyinka kadib markii uu xisbiga wadani xubintaasi hakiyay waxaana golahu u ansixiyay 6 xubnood oo ka mid ah 7 xubnood ee komishinka doorashooyinka Cabdiraxiin Muuli Ismaaciil shabakada wararka Kilis News magaalada Hargeysa